bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan qodobada wararka keenan ee subaxnimadana waxaa ugu dooroon gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay in cabsi laga qabo weerarada al-shabaab darteed uu u fuli waayey ballanqaadkii ahaa in dhagxaanta uu ka qaadi doono waddooyinka xidhan ee muqdisho madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland oo la sheegay in cadaadis uga yimid beesha caalamka ay ku soo gaareen magaalada muqdisho odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan oo ka hadlay waxa ku kallifay in ay magacaabaan guddi doorashada maamulka hirshabeelle xilli madaxweyne waare uu hore guddigaasi ugu dhawaaqay dowladda soomaaliya oo sheegtay in sannadka soo socda la dhisi doono iskuulo waxbarasho oo boqolaal carruura ay wax ku baran doonaan siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka gado oo kismaayo ku yeesha shir oo dowladda federaalka ku eedeeyey inay weli faragelin ku hayso gobolka gado iyo FBI-da oo ka walaacsan in gambaleelka albaabka uu booliska maraykanka basaaso waa subax arbacaa dhegaystayaal taariikhduna ay ku beegan tahay 2 bisha Sebteembar sanadka 2020 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkeenna ugu waaweynaa isagoo dhammaystiran saake waxaa la diyaaray waryaheenna Maryama Cabdulla Xasan maxamed shuuriye nuur wad mahadsan tahay subax wanaagsan warkiyo fidsan gudoomiyaha gobolka banaadir Cumar Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in cabsi laga qabo weerarada al-shabaab darteed uu u fuli waayey ballanqaadkii ahaa in dhagxaanta uu ka qaadi doono waddooyinka xiran ee magaalada muqdisho farxaan maxamed xuseen ayaa ka waramay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo xalay ka hadlayay munaasabad loogu dabaaldegay sanad guuridii ka soo wareegatay tan iyo markii xilka loo magacaabay ayaa waxa uu sheegay inay suurtagal weyday inuu fuliyo ballanqaadyadii ugu muhiimsanaa oo ay ku sugayaan shacabka magaalada muqdisho ballanqaadkaasi oo ahaa in waddooyinka magaalada muqdisho dhagaxaanta ka qaado balse gudoomiye Cumar Filish waxa uu sheegay in arrintaasi ay suurtagal weyday kadib markii lagarta kooxda al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada muqdisho ay badatay waxa bulshadu aad u danaynaysay dhagxaanta magaalada iyo waddooyinka lagu xiray in la qaado arrintaas waxay ka mid tahay qodobada nagu taagan oo aan noo suuragelin ujeeddadu waxay ahayd inaan magaalo isgudubkeedu uu sahlan yahay oo gees ilaa gees aamin ah inaan ku shaqayno ayaa ujeeddadu ahayd balse arrintaas waa noo suurageli weyday caqabadaha amni ee cadowgu oo noo dhigay waddooyinkii aan ku shaqayn lahayn darteed arrintaa iyada ah waqti badan iyo fikir badan ayaan ku bixinay sidii aan ku xaqiijin lahayn arrintaas ugu dambayntii inaan dhagxaha qaadno waxaan ku beddel qaadanay inaan fariisimada cadowga ee labada shabeelle kaabiga ugu jira magaalada muqdisho inaan hujuunno kana saarno cadaawadda waad ogtihiin ciidamada xoogga dalka inay maantii xaqiijinayaan guulo la taaban karo oo halkii laga soo bixi jiray degmooyin ama magaalooyin muhiim ah ay dib u qabsanayaan ayagoo weliba aan cid kale oo aan ilaahay ahayn garabsanayn dhinaca kale gudoomiye Cumar Filish waxa uu sheegay in howlgalo culus lagu qaaday gobolada shabeellooyinka si loo xaqiijiyo amniga magaalada muqdisho gudoomiye Cumar Filish waxa uu sheegay in howlgaladaasi ay ciidamada guulo ka gaareen isla markaana kooxda al-shabaab laga saaray degmooyin iyo tuulooyin ka tirsan goboladaasi howlgalka lagu bilaabay shabeellada hoose haddana la sii marayo meelo aan fogfog halkii laga bilaabayna waad garan kartiin dhinaca kale waxaa ciidamo loo diray xilli dhow shabeellada dhexe iyadana oo iyadana muddo ah laga gooyo isgudubka magaalada Joor iyo magaalada Muqdisho maantii isgudubkaas waa caadi ciidamo qalabaysan tababaran awood u leh inay gacanta ku dhigaan amniga deegaanadaas ayaa loo diray taasina waa ilaahay maadiis mar haddii labadaas gobol amnigooda talaabahaas muuqday laga qabtay rajada aan qabnaayo waxa ay tahay in magaaladan oo amni dhammaystiran ah leh oo aan waddooyinkooda dhagax ku go'nayn oo kalsooni ay dadku qabaan oo ayan baqanayn in la gaaro biidnillah gudoomiye Cumar Filish oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in maqaamka magaalada muqdisho ay xoog saari doonaan raadintiisa muddada uu xilka hayo mar haddii la helay matalaada gobolka banaadir maqaamka caasimadda oo bulshadaanu ay u qabto waxa la yiraahdo boholyow inaan taasna ayadana gaarsiino sida aad ka warqabtiin 2000 jaartarkii dawladdii TNG-da carte ilaa waqtigan waxaa ahdi kasta ama dastuurka lagu qorayay
magaalada caasimadda waxay yeelan doontaa maqaam laakiin wax tallaaba oo intaas dhaafsan oo la qaaday ma jiraan xaqiijinta arrintaas waa hadafkeenna haddii alla idmo iyo himilada biidni illaahi alkariim aan rabno inaan ku shaqayno arrinta matalaadana inaan dhammaystirno maadaama ay meel wanaagsan hadda ay marayso hal sano ayaa laga joogaa markii xilka gudoomiyaha gobolka banaadir loo magacaabay cumar maxamuud maxamed cumar filish balse weli shacabka magaalada muqdisho kama helin ballanqaadyadii uu sheegay haba ugu badnaatee furitaanka wadooyinka muqdisho madaxweynayaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland siciid cabdulaahi dani iyo axmed madoobe ayaa la sheegay in cadaadiis uga yimid beesha caalamka ay ku yimaadeen magaalada muqdisho axmed maxamed ibraahim ayaa ka waramaya kadib markii magaalada muqdisho ay yimaadeen maalinimadii shalay madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay xildhibaan daahir amiin jeeso xildhibaan jeeso ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynayaashan aysan ku imaan muqdisho rabitaanka dowladda balse ay ku yimaadeen sida uu hadalka u dhigay culeysii uu saaray safiirka maraykanka ee soomaaliya ambasador donald yamamota intaa wuxuu raaciyey inay mudneed iyaga oo qadirin loo hayay aynay yimaadaan magaalada muqdisho balse haatan aynan jirin xushmad sharafeed ee loo hayo waa siduu hadalka u dhigay jubbaland iyo puntland rabitaan soomaalinimo kuma imaadeen hanjabaada donald yamamoto iyo muxuu ahay ninka la yiraahdo James Swan ay ku yimaadeen ayagayna go'aan wixii ay qabaan oo ku darsanayeen inbutka ay ku darsanayeen iyaga soo gudbin doono aniga uma maleynaayo inay u yimaadeen Soomaali jacayl iyo Soomaali arinteeda waxaan ka qaban hanjabaada ugu imaanaysay Yamamoto iyo James Swan ay u yimaadeen marka aan saas leeyahay waxa weey waxaan ogahay sida loo bariyay sida ixtiraamka ahayd ee loo bariyay maanta iyagoon cidna ayna barin ay yimaadeen marka hadday yimaadeen haddana dabcan madaxda dalka u taliso isku mid ah madaxweynuhu si ugu taliyaan ay ahaanaysa Puntland inay wax ku darsato iyo Jubbaland inay wax ku darsadaan inay wax ku darsanin muhiim annaga uma aragna sababtoo waxaan u aragnaa dad dawladnimada Soomaaliya oo dhanba ka soo horjeedaan u arkaa سيد عبد الله الدني مدحوينها بنتلان يو أحمد محمد إسلام مدوبي مدحوينها جبلان أيا لوجو وضعها إن كل ما إلى قاتان مدحوينها دولة الصومالية محمد عبد الله برماجو يو وكيل هذا بيش عالمك كل ما داسيا يا دارنان دونتا أرمها دورشوين كيدلك ما دام مدحوينيا شان يديدين كقرب قالك الشركة لو سمر بسدح أرمها دورشوين كاللوجا هالله يقول بهنا كدورشوين كا أيود عيسو لوجو صاري dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in sanadka soo socda la dhisi doono iskuulo waxbarasho oo boqolaal caruur ay wax ku baran doonaan. Cabdisataar Xaaji Cali ayaa faahfaahinaya warkaan. Sihayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay dhisaan 280 iskuul kuwaas oo ay ka faa'iideysan doonaan 1 milyan oo caruur ah oo aan hadda waxbarasho haysan 3 sano ee soo socota. Wasiir Goodax Barre ayaa hoosta ka xariiqay in wasaaradda waxbarashada sanadihii la soo dhaafay ay sameysay dadaalo lagu dardargelinayay in la daabaco manhajka waxbarashada dugsiyada sare. Waxaana wasiirku uu tilmaamay in dadaalkaas ujeedka ay u sameynayaan ay tahay in kor loo qaado tayada waxbarashada si caalamka loola tartamo. waddankeenna waxbarashadiisu meeshii la rabay ma gaarsiisa kaalinta dawladda dhexe dadaal badana ka socda ilaa 280 iskool ayaa 3 sano soo socota dhismahoodu oo dhici doona waxaa qorshaha wasaaraddu yahay in 1 milyan oo caruura oo maanta aan iskool tegin inay tagaan 3 sano soo socda haddii eebay dadaalkaas marka meel ma tegi karo waa la socotaan manhajkii inuu soo dhammaaday maantay manhajku waa soo wada gaaray bugaagti waa wada diyaar ilaa dugsiga sare waxaa loo samaynayaa in tayada waxbarashada kor loo qaado tiradana kor loo qaado sidaas ayaa adduunkana ula tartami karnaa waddankeennuna uu nabad ku noqon karaa ardaygu wax ma baran karo haddii aysan degaanku nabad ahayn nabadduna dawlad ma dhalaysa keligeed nabaddu waa howlwadareed waa wax la wada leeyahay ardaygaas yar si uu noogu soo barbaaro waa inaan suuro gelinaa inuu carro nabadda ku nool yahay haddii aysan taas dhicin annaguna lugooyaan la dhimanaynaa asuguna mustaqbal ma laha waddankiina haddee waa dad iyo dhul hadduu dadki jirin dhulka waxba ma taro marka waxaa la rabaa in nabadda
lagu dadaalo. siihayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa muddooyinkii la soo dhaafay goobo waxbarasho ka dhagax dhigay magaalooyinka Baardheere, Garbahaare, Doolow iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. dukumeentiyo si sir ah looga qaaday ayaa muujinaya in laanta dambi baarista FIB da Mareykanka ay ka walacsan tahay in dadka qaar ay u isticmaalaan gambaleelada in ay kula socdaan booliiska. warqadaha waxay sharaxayaan in dhacdo 2017 ahayd qof si hagid ah uga daawaday muuqaal toos ah booliiska oo isku diyaarinaya in gurigiisa hortiisa ay kaga shaqeeyaan fasax maxkamadeed oo baaritaan. markii hore dadka u dooda arrimaha shaqsiga waxay muujinayaan walaac ku saabsan xogta laga helay albaabada internetka ee lala wadaago booliiska. warqadaha la jabsaday oo si wada jir ah waxay laga helay in ka badan 250 warqadood bogga booliiska. dukumeentiga su-aasha ka taagan ayaa waxa ay tahay warbixin falanqeysan oo bixinaysa aragti guud oo ku saabsan furaha iyo caqabadaha booliiska ee ka imaanaya nidaamyada amniga guriga iyo gambaleelada albaabka casriga. gambaleelada oo badanaa ku horyaala xagga hore ee albaabka waxaa taabta ama yeeriya dadka guriga soo galaya si loo maqlo oo looga furo albaabka. sidoo kale waxaa la arki karaa lana maqli karaa qofka albaabka taagan ka hor inta aan laga furin. dhacdadii 2017 waxay sharaxaysaa sida qof baaritaan ku socdo oo si qarsoodi ah ula socday dhaqdhaqaaqa laanta sharci fulinta.